شك يفنينا ويفنيها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تمتعها وبلغة من قوام العيش تكفيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومعلنما أربعة كنا باقين تضبط يطوانك بش شانات جماد الأول كن أفر بغل أفرتنك هجريك ما أنتوك لو حنكم بلانسانين inaan qaadana naxwaha arbacada iyo naxwa waxaan aqrinaynaa arbacada iyo khamiistan dhehe cafwan arbacada iyo khamiista waxaan aqrinaynaa yani kitaabka atuxfatu saniya bisharxi lmuqadimati alajrumiya uu iska leeyahay maxamed muxuyidiin yani cabdulxamiid madni waxaa iskale ibn alajrumiya iskale laakiin sharaxa waa tuxfatu saniya kitaabkaas qof walba waa soo gato dad badan way codsadeen mar kitaabkan aqrinaa hore wax maanta taabtay waa isaga soo celinaa dhib male maadaama kitaabka la akhrisana sidoo kale waxaa iga ogeysiis ah maalinka jimcaha ah qof walba uu soo gado kitaabka arraxbiya la yidhaahdo fi cilmi alfaraa'id uu iska leeyahay maxamed ibnu cali uu iska leeyahay yani oo loo yaqaano arraxbiya kitaabka raxbiyaha oo gabayga ah kitaab yariis waayo madni ah soo gado waxaan ugu fiican markaa soo gadanaysa inaad soo gadatid asoo sharaxaa jiro oo la yidhaahdo sibdulmaardiin uu sharxa arraxbiya fi cilmi sharaxaasa beella madni waxaa iska leh imaamu raxbiya sharaxan waxaa iska leh sibdulmaardini labadaasdaa isku heshid beello anagana labada waa tataabanayna insha allah hadda markii naxwaan bilaabeynaa kitaabka tuxfatu saniya kow muqadimo waa almuqadimaat yaa hordhac waayo qofkii muqadimada waxaa la wadaa yani tuqadimu man tacalamaha calaa qiraani qofkii barto waxay ka hormarinaya asaagiisi haddaa naxw barto asaagaa waa ka hormaraya marka waxaa marka tacriifkiisi iyo mawduuciisi iyo mirihiisi iyo nisbadiisi iyo qofkii dejiye xukunkiisii oo keena insha allahu intaba carabkaan marinan asaan oo keenayo wuxuu yidhi qaala maxamed muxyidiin raximah llahu tacaala atacriifu qeexid kelimatu naxw kelimadaas naxwo in la qeexo marka hore wuxuu yidhi tudlaqu waxaa lagu idlaaqaa fi luqati tudlaqu waxaa lagu idlaaqaa naxwaha fi luqati luqada dhexdeed xaal uu ahaaday luqadii de alcarabiyati ee carabiga ah ee loo nisbeeyey calaa ciddati macaanin macnayaal dhowr ah ayaa lagu magacaaba dhowr macno ayaa lagu magacaaba minhaa macnayaalkaas ayuu kamid ahaaday yani minhaa macnayaalka ayuu ka mid ahaaday aljihatu jiho iyo dhan ama dhinac taquulu adiga laftigaaga waxaad leedahay dahabtu waxaan aaday naxwa fulaanin hebel xaggiisii aan aaday ey jihatahu hebel dhinaciisa aad adoo ula jeedo waxaa loola jeeda ey jihatahu hebel dhinaciisii aan aada adoo ula jeedo sidaasaa leeda wa minhaa macnayaalka naxba waxaa ka mid ah ashibhu ekaansho iyo walmithlu lamid noqosho ama lamithlu lamid taquul adig laftigaada waxaa leedahay muxamedun ninka maxamed la yiraahdo hee naxwa caliyin cali oo kale waay ey shibhuhu yani cali uu shabahaw wa mithlu cali lamid yahay adoo ula jeedo wuu egyahay marka intaas waa xagga luqada si loo yaqaano ama naxwooley si kale u taqaana waatana watudlaqu waxaa lagu idlaaqaa huwa kelimada naxwaha watudlaqu waxaa lagu idlaaqaa cafwan kelimatu naxwin kelimadaas naxwaha waxaa lagu idlaaqaa fi istilaaxi alculamaa culummada heshiiskoodii dhexdooda xaal u ahaaday cala alcilmi cilmigaa lagu idlaaqaa macnaa cala alcilmi ogaalkii ama ogaanshihiaa lagu idlaaqaa bilqawaacidi qawaacidii la ogaado qawaacid waa jamcu qaacida waxaa la yidhahdaa qaacidadana waa shay badan erey yar oo ku koobaya la yidhahdaa cala alcilmi ogaansho ayay ku heshiiyeen bilqawaacidi qawaacid la ogaado allatii qawaacidaasoo yucrafu lagu garto biha qawaacida axkaamu awaakhiri lkalimaati kelimooyinka gadaalyaashoodii axkaamteed lagu barto kalimaadkii alcarabiyati ee carabiga loo nisbeeyey fii xaali tarkiibihaa xaaladda kelimooyinkaasi xaaladda isa saarkeediina yani lagu ogaado fii xaali tarkiibihaa xaaladda isa saarkeedana yani ahaatay
xaaladda isa saaran tahay kelmadda la isku saaro xaaladdaas axkaamteedii yacni aan lagu gartaa waayo oo min alicraabi icraab ah xaaladda walbinaai binaa icraab maxaa la yihahdaa waa gaari doontaa hadda ha ku wareerin meeshiidan uu tegi doonaa walbinaai bina maxaa la yihahdaa waa gaari doonta ha isku dhibin hadda iyo wamaa yatabicu wax alla wixii soo raaco daalika icraab iyo bina wixii soo raaco waxaasaa la yihahdaa yani kelimadan aakhirkeeda maxaa loo goday sal zaydun kelimadaas waxaa u dambeeya daala u dambeeya daalkaas maxaa loo goday marartu bizaydin daalkaas maxaa loo hoos dhigay ra-aytu zaydan maxaa loo kor dhigay yaquumu waa godan yahay maxaa loo goday lam yaqum haddana waa reebmay maxaa loo reebay fahmaysa waxaasuu ka hadlaa mawduuciisa almawduucu mawduucu ka hadlaayo wa mawduucu cilmi naxwi cilmiga naxwaa la yidhaahdo yani mawduuciisii oo alkalimaatu alcarabiyatu waa kelimooyinka carabiga waa lagu bartaa daara iyo wax kale laguma barta kelimooyinka carabiga lagu bartaa min jihati albaxthi xag dhanka baarista can axwaaliha xaaladeedna la baaro xaaladaha almadkuurata lasoo sheegay yani maxaa loo goday maxaa loo kordhigay maxaa loo hoos dhigay maxaa loo reebay xaaladaha waxaasaa laga wadaa miraha laga helaya thamaratu miraha yani wa thamaratu tacalumi cilmi naxwi cilmiga naxwaa la yihahdo barashadiisii miraheedi yani mirihii laga helayay waxa waaye siyaanatu lisaani carabka ka ilaalintiisi carabka laga ilaalintiisi can ilkhada gaf laga ilaaliyo fi lkalaami hadalkiina lagu dhex gafo kalaamkii alcarabiyi carabi loo nisbey ujeedadiisii xataa loo barto carabkaaga inuu yani edab yeesho oo luqadda carabiga uusan qaldin labo yani wa fahmu lqur'aani siyaanay ku cadfanta wa fahmu lqur'aani iyo qur'aanka fahmkiisi waa miraha laga helayo qur'aanka fahmkiisi waa qofki inuu fahmo qur'aanka alkariim ee wanaaga badnaa sharafta badnaa iyo wal xadiidi xadiidki qofki inuu fahmo mirahaasuu ka helaa qur'aanka iyo xadiidka fahmayo xadiidkii annabuyi nabiga loo nisbeeyey fahman fahamkaasoo saxiixan fayow oo saxiix ah fahm oon laablaab ku jirna fahmay hadday naxwaa barato kitaabka iyo qur'aanka si fiican u fahmay kelimadan caam miya khaas miya mushtarak miya nas miya mawsuul miya masdar miya fahmaysa waa fahmaysaa marka alladayna qur'aankaas iyo xadiidkaas oo humaa labadoodba aslu shariicati ah shareecada asalkeedii waa labadaasay kasoo jeedaa shareecada kitaabkii sunnada waa asal shareecada alislaamiyati islaamka loo nisbeeyey wa calayhimaa kitaabka iyo sunnada ama qur'aanka iyo xadiidka madaaru shariicati shareecada meeshii ku wareegeysa shareecadoo dhan waxay ku dul wareegtaa kitaabka iyo sunnada fiqi wax kasoo aragto kitaabkii sunnada le laga keenay nisbatu intuu nisba sheegtay qabiilkiisi wa huwa naxwaha nisbadiisi min alculuumi alcarabiyati yani culumta carabiga uu kamid yahay 12 culumta carabiga 12kaasoo mid kamid wa isagaan ugu muhiimsan weliba waadicuhu yaa deji macna walmashhuuru sida caankoo la caanbixiyey waxa waaye ana awala waadicin axadka ugu horeeyuu dejiyo licilmi naxwi cilmiga naxwaha axadka ugu horeeyuu dejiyo huwa abulswad addu'liyu waa ninka la yirahdo abulswad addu'liyu sababto yani uu ku kaliftayna ayadoo faahfaahsan daradan kasoo hadlay marka halkaas loo laabto abulswad addu'liyu taabicigaasaa dejiyey biamri amiiri lmuminiina muminiinta madaxweynahooda amarkiisi ayuu ku dejiyey caliga wuxuu yidhi niyo qor dhowr maroo ka cudur daarta marka dambe gabadhiisa wax qaldeesoo arkay iyo nin suuratu bara ku ciyaarayo dhahayo baraatu min dhahayo waclamu anakum wabashiri fasiixu fi lardi 4 ashhurin waclamu anakum suuratu lbaqara wuxuu dhahay ana allaha bariiun min almushrikiina warasuulih nina wuxuu aqriyey ana allaha bariiun min almushrikiina warasuuluhu laamku waa godan yahay qur-aanka waa hoos dhiga marka macnaheed waxay noqonaya ana allaha ilaahay bariiun beri ayuu ka yahay min almushrikiina gaalada warasuuli ilaahay rasuul iyo gaalba beriyo ka yahay labadaas beriyo ka yahay waana qalad oo gaalnimo wa markaasuu madax gacanta saartay markaasuu naxwaha dejiyey marka biamri amiiri lmuminiina muminiinta amiirkoodii amarkiis ayuuna ku dejiyey ayuu ku qoray macnaha caliyin ibn abi aalib in abi aalib ahaa caliga radia allahu allah raadi noqdo tacaala ilahi waa sareeyaaye canhumaa abulaswad iyo caliba labadood allah ka raadi noqdo xukmu shaarici allah sharciga dejiyo xukumkiisi fiihi fi tacalumi naxwi yani naxwaha barashadiisa uu xukumaa maxay tahay shaaric waa ismu min ilahay magaciisa waa shaaricdaa maqasho sharci dejiye allah sharci dejiyo sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini marka shaaric sharci dejiyo alla qof kaloo dhihi kara maaha sharci dejiyaan ahay golo sharci dejiyaan nahay cid kaloo dhihi karta malaha hadday dhahdana dhammaan culummadu waxay isku waafaqsan yihiin qofkaas ilaahnimo inuu sheegtay
يعني golaha sharci dejintaan nahay waxay u dhigantaa golaha ilaahiyadaan nahay ilaahnimaa maxaa yeele shaaric allah la yidhaahdaa الله شارع وشرعي الله حكم شارعي الله شرعي دجيه حكم جيس محويه في تعافيه في تعلم النحو نحو برشديس هو حكم جوابته حيتها وتعلم نحو برشديس فرض وفرض فرض كاسو من فروض الكفاية اسك كافنت فرديال كذا كمد فرض الكفاية وحالي هذا شيء هدي يعني قف نجمد او سمايو ونجد عايو هدي لما انت ولا سمين ودن بابينا تصالح انت ميديالو ميدك ان لدوغا واجب نوغا haddii laba qof ka mid ah hadday naga duug fardu kifaayo in meedkaas la duugo laba qof ka mid ah hadday duugto ama saddex qof ama hal qof annaga dembiga waa naga dhaca meedkaas haddaan la duugin magaaladaas oo dhan dadka joogo meed inuu meesha yaalana ogaa dhammaantood waa dambaabay fardu kifaaya la yidhahda marka magaalada dadka degan hal qof ama laba qof day naxwo barato dembiga waa ka baxaya haddaysan wada baran dhammaantood waa dambaabay وربما waxaa laga yaabaa tacayana inuu waajibo tacalumuhu tacalum naxwi naxwaha barashadiis inuu waajib noqdaa laga yaabaa calaa waaxidin qof korkiis inuu waajib ku noqdo qofkaasoo yani calaa waaxidin qof korkiis inuu waajib ku noqdaa laga yaaba oo fasaara naxwihii uu noqdo farda caynin fardul cayn uu noqdo calayhi qofkaas uu ku noqdo fardu cayn waa wax waajib ah salaada oo kale adaa lagaa rabaa makaa goys qof kale makaa qaadi karo fardu cayn aa la yirahdo wixii adii lagaa rabo qof kale aan wakiilkaaga noqon karin marka fardu cayn uu noqday ku noqdaa qofkii yiraahdo shiiqan ah tafsiir aqrina waxaan aqrina qofkii yiraahdo waajib ku tahay waxa tafsiirka ilaahay yani tafsiirka quraanka ula jeeda qof aan naxwo aqoonin sarfi aqoonin yani balaaqa wax ka aqoonin usul fiqh aqoonin waa fasir haduu yiraahdo ku dambaaba saas culimada dhamaan sheegay marka sidaas waay qaala al-musannif wuxuu yiri kitaabka alif bismillaahir rahmaanir rahiim magac ilaahan ku bilaaba allah subhanahu wa ta'ala naxariista guud makhluuq naxariista allah subhanahu wa ta'ala naxariista gaaraaneed mu'miniin naxariista قال وحير مك مصنف وكي كتابك ألف نونك اسكو هوسدك قال المصنف كي كتابك ألف وحيري وهو من كتابك ألف أبو عبد الله وايه أبو عبد الله وايه محمد ابن داود السنهاجي المعروف لو يقان بابن أجروم نك ألف كتابك اسكالوا مضني أجروم المولود كأسول لي في سنة 72 و600 سنة كما كوا لح بقول تضواتي إلا مضي على دلي والمتوفى على أفصدي في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية سنة مركو تضابق لباتن سدع هجرية مركز الله أفصل انت رحمه الله ونحرسته تعالى إلهي مخلوق نوع كسرية قال الكلام واللفظ المركب هل كسك الجوجو ما جاء سبحانه وجه وقتي هنقول ما والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد إن شاء الله بريق قميصته وآخرين هنا ما شان كودينا على ديار قرو